magaalada Hargeysa warbixin umuurtaasi ku saabsan waa kan mar kale wariyaha iyaga nooga soo warrama Somaliland Qadar Maxamed Cakulle oo warka noo soo diray kulan diimeedka jamaacada tabliiq oo sanad kasta mar la qabto caalamka ayaa sanadkan lagu qabtay magaalada Hargeysa ee Somaliland kulankan jamaacada oo ka dhacay xarunta markiska ee ku yaala bariga magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay 100 kun oo isugu jira culimo awdiin ganacsato iyo dhalinyaro kuwaasi oo ka kala yimi daafaha caalamka iyadoo ay kulmisay walaalnimada muslimka kulan diimeedkan jamaacada tabliiqa ayaa waxa uu socday muddo 3 maalmood ah iyadoo oo maanta lagu soo gabagabeeyay xarunta masaajidka weyn ee ku yaala bariga magaalada Hargeysa deegaanka masaajidkaasi ay deganaayeen jamaacadu ayaa si weyn waxa uu camirmay wax kala iibsiga dhinacyada kala duwan oo u badan astaamaha dhinaca diinta islaamka sida kutubta huga iyo qalab kale Qadar Maxamed Cakulle Universal TV Hargeysa dawladda South Africa ayaa gabi ahaanba waxa ay dhameysay khilaafaadkii u dhaxeeyay shaqaalaha dawladda iyo dawladda waxaana la sheegayaa in la soo gabagabeeyay shaqo joojintii maalmihii ugu dambeeyay ka soconaysay waddankaasi South Africa waa kan wariyaha iyaga nooga soo warrama waddankaasi Cusmaan Xasan Cali Fantastic oo warkan noo soo diray dawladda South Africa ayaa ku guuleysatay inay